waxaa la yiraahdaa hadda ka hor nin baa xaaskiisii 3 dalaqadood oo islaan buu qabay xaas buu qabay islaantu xogaa waa mukhalifaysay ninkii bay xogay inay ka iska tuurto ama ninkiisa ku qanacsanayn markaasay mukhalifaysay markay mukhalifaysay bay wuxuu markay uu yimaadoba habeenkaas markuu yimaado guriga yimaado ayay salaad gashaa si aysan gogosha u teginin waa soo wasaqaata qiyaamul layl ayay dukataa markaas waxay ka cararaysaa waa ninka beriguna waa ogtahay oo dumarka ragaysa raalli ka ahayn baa lagu dari jiray dhaqamo iyo caadooyin baa jiray markaasay islaantu ninkaani si ay uga fakato ayaa markuu guriga yimaadoba waxay gashaa salaad bay la dayataa ninkan haweentan salaadeedii buu dhibsaday waa ku xanaaqay wuxuu ku yiri caawa hadaad dukatid 3 dalqadood ku furanta ayuu ku yiri فكرتها سدح القرار في فرنتو عاود دكتي هوانتي سيدي عاده وهاد markii hadalkaas ay maqashay waa basay doonaysay Allahu akbar baytir salaadeedii iska gash السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خياري إذا الهانتين بقى أنا هو محمد محمود علي هالكان وأهل الخير ميديا رنتي وحنكو جذا جرني قصوين كي آد وقيمها بدنا شيخنا عزيزي شرفت لها الله زائدية دكتور شيخ يوسف أحمد ورنهانتي تاريخ نولولت كيس سلسلة دعاء حكمة بدنا يكون جرت شيخة نوقص بالله مركي أو دش إلا أنقص عنا إن نجارنا إلا وحيرك أو ما أنت جوجي تطورات علمي كجاري حالة ذكر الدول رنتي la soo noolaa ee ku soo dhex jiray aqoontiisa waxbarashadiisa halkeenna ka wadayna marka sheekadana sheekhu assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sheekh soo dhawow wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh hayyakum allah wa bayyakum media ahlu khair iyo dadka walaalaha ku tixano Soomaalida aan ku hadlayno dhageysanaya ama maartayna daawanay meel kasta joogtiinba waxaan idin leeyahay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ إلهي وكبركة أدي هذا ما سنت عروتي وقتها خالقة نوصل بحسي أو نوقت لقاش أمد الصومالي المرة والباب إن تكون بحدا وقتها يجودك أنت بقى عقلك يحوقك أنت بدن الله سبحانه وتعالى ميزان كحسناتك الله فوساره شيخ قصة إنه أي نوجوتي علوماتي oo labadii dariiqa oo ishor fadhiisatay oo arrinkii ku jirtay saddexdii su'aaleed kala ahaa tusbaxa tobanka laga laalaadinayo maxaa la yiraahdaa geela boole bixintiisa iyo hadii alla idmaayo dalaaqa waxaan soo qaadanaa dalaaqi iyo geela boole bixintiisa oo ka jawaabay sheekh Xaaji Aadan Yare oo runtii nin aad iyo aad u xigmad badnaa ahaa marka caawa waxa ay noo joogtay markii uu yiri adin sheekadeenii ugu dambeysay ah kitaabka manhajka ku soo xirma hadii aad rabtaan baabu dalaaq markaad gaartaan aad ogaanaysaan halkaas inoo ekeed sheekadii tusbaxan runtii qisa aad iyo aad aniga bii cajiibisay umada dhan ay ka falceliyeen oo runtii xigmad la uga jawaabo yiri hadii aad 99ka ka soo heshaan kitaabka sharaxan 10 in ka tusaya oo aad iyo aad cajaa'ib u ahayd marka caawa waxa ay noo joogtaa geeli boole bixintiisa sheekh soo dhaw Allah ku barakeeyo الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إلهي توفيق الله نوافجيه دتكي علماء iyo macallimiinteeni iyo dadkii waxna soo tarbiyay iyo dadka culumta ka qaadanay ilaahay dhamaantood dambigooda Allah dhaafo subhanahu wa ta'ala anagana ilaahay dambiganaga Allah dhaafo walaalaha waqtiga ku bixiyay hadaladan iyo gaarsiinteeda iyo dadka u khidmeentooda أهل خير أيضا خير الله سيو سبحانه وتعالى الكستا وقت كستا زمان كستا يجوجان دت سان رؤوت المعني دتك أهل خير كما علماء دتك مربين دتك تربية نرشوا دوا دروس ويا قرآنكم أنبياء بوكها الله دتك وناسراي بوكها الله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب إلهي دتك مارتي الرسول شيء أنبياء وحلوسوا وريا قصوين كودا in lagu cibro qaato oo duruus iyo cilmi laga faa'iideysto khibrooyinka dadka wanaagsan ay ka tageen oo dadka ay dhaxal siiyeen waa duruus aad iyo aad u qiimo badan weeyaan marka macluumaad mutaraakim ah fara badan oo maartay dadku kala dhaxleen iyo khibrad ay kala dhaxleen badan baan kaga tagay meelii lagu kufay waa la calaamadeeyay
meelihii maaragtay laga hormarayay waa la calaamadeeyey ma ahan anagu ma bilaabayno waddada laakiin waddo horay loo budliyey horay loo qaaday horay loo xaaray horay loo tajribeeyey baan qaadaynaa marka waxaan ka faa'iidaysanaynaa arrimahaas weeyaan sidaa darteeda ustaad maxamedow maanta waxaan ka hadlaynay dhowrkii masalo culimadaasi ay isdhaafsadeen ayaan ka hadlaynay iyo xaaji aadan yare oo ah nin murabbi ah oo ma ahan cilmigu keli ah aqoonta keli ah ma aha laakiin qofku markuu experience leeyahay khibrad uu leeyahay oo muddo dheer masaa'isha uu ku soo jiray waxay keenaysaa inuu ka akhriyo dhinacaysa dadka kale wax ka akhrin karaynin ayay keenaysaa intaanan shiiqa u gelinin masaa'isha siduu uga jawaabay iyo maaragtay halka xigmada leh siduu maaragtay masalada uu maaragtay waddada ugu bixiyey ama u findhicilay masalada maaragtay si hoose oo maaragtay faftiran intaanan u gelinin ka hor waxaan rabaa inaan xusuusiyo culimada cilmiga aqoontiisa iyo maaragtay cilmigaasi waqtiga munaasabka ah iyo meesha munaasabka dhigitaankiisu way kala duwan yihiin marka qaarkood ninkan khibrada aan lahayn waxaa laga yaabaa masaa'il inay u timaado laakiin masaa'isha sida asaga ula muuqato sare oo ku xukumo uusan fahminin meelaha qaarkood bulshooyinka ayay duruufaha ku leeyihiin iyo sida arrimaha u dhacaan masalan waxay gogol xaar u tahay masalan rabo inaan ka hadlo iyo sheekh asagoo maaragtay masalada u xalliyey waxaa la yidhahda hadda ka hor nin baa xaaskiisii 3 dalaaqadood islaan buu qabay xaas buu qabay islaantu xoogaa waa mukhaalifaysay ninkii bay xoogay inay iska tuurto ama ninkaysa ku qanacsanayn markaasay mukhaalifaysay markay mukhaalifaysay bay wuxuu markay uu yimaadoba habeenkasta markuu yimaado guriga yimaado ayay salaad gashaa si aysan gogosha u teginin waa soo wasa qaataa qiyaamuleylka ayay dukataa markaasi waxay ka cararaysaa waa ninka beriguna waa og tahay oo dumarka ragaysa raalli ka ahayn baa lagu dari jiray dhaqamo iyo caadooyin baa jiray markaasay islaantu ninkaani si ay uga fakato ayaa markuu guriga yimaadoba waxay gashaa salaad bay gashaa salaad bay la dayataa ninkan haweentan salaadeedii buu dhibsaday waa ku xanaaqay wuxuu ku yiri caawa haddaad dukatid 3 dalqadood ku furanta ayuu ku yiri فكرتها 3 dalqadood ku furanta caawa haddaad dukatid haweentii sidii caado u ahayd markii hadalkaas ay maqashay waaba say doonaysay Allahu akbar bay tiri salaadeedii iska gashay ninkii culimadii u yeeray magaalada joogtay oo fuqahada ahay hadday islaantii aad 3 baan kugu furay ku tiri haddaad caawa salaad dukato oo salaadna gashay maxaa ku yaala bay yiraahdeen haweentaasi waa kaaga dhamaatay waa haween baa'ina 3 dalqadood bay ka dhacday islaantu ajnabi bay ka tahay guriga halaga ka saar baa la yiri marti islaantii markii noocan oo go'aanka gaareen fuqahadii meesha ragii joog marka masalada marka dusha sare la eego sax waay laakiin waxay u baahan tahay cilmi daqiiq ah say u kala duwan yihiin baan ku sheegayaa culimadu khibrada leh nin sheekh ahaa markaa maqnaa oo la rajaynayay inuu berri soo galo waxaa la yiri bal ninkii caalimka ay hebel ahay ayaa nagu soo aadanay berrina waa noo iman doonaahe aan masalada la sugnaa la yiri marti ninkii sheekh ahay waa yimid deegaankii markuu yimid masalada loo sheegay maxaad xukunteen saas baan xukunnay wuxuu ku yiri islaantii hal iigu yeero barqadii baa loo fariistay odayaashii baa yimid dadkii qaraabada baa yimid islaan la furay oo 3 dalqa loo dhameeyay qaraabadu ma ogolanaya ninkii inay isla sii noolaato marka si u dhageystaan sheekhu xukunkiisa ayaa loo soo fariistay barqadii baa loo fariistay sheekhu markuu minkii la keenay wala suu yimid islaantii wuxuu ku yiri arrintaasi ma jirtaa Soomaanaha waxaad samaysaa weyse qaado ku yiri inta u dhiibo buraashad ay ku weyse qaato weyse qaado weyse qaadkii horta si fiican uma aysan weyse qaadan si sharciga ah weyse qaad oo buray ayay weyse qaadatay si fiican sax Soomaan haddana wuxuu yiri salaad inta gashay 2 ragcad duko waxaad kor ula jaharo kor ii maqashii faatixada iyo waxaad akhrinayso الله أكبر مكي تري الحمد لله رب العالمين كن نعبد كن نستعين
soo sax maaha sheekhi ninkii wuxuu ku yidhi islaantu kaama fura maxaa yeelay salaad maysan dukan wax ka jira salaadii dukatay ma jiraan wixii ma fahan soo maaha islaantu wuxuu ku yidhi kaama furo yidhi salaad maysan dukan waad ogtahay nin baan saxaabi salaadba ma aha waxayba ay dukatay wax sharciga salaad la yidhaha maaha ninka haddaad dukatid buu ku yidhi ma ogtahay صحابة وقتها صلاة رافع بن خلاد نك اللي يجرى المصيب بالصلاة الأورنج لما يقول النبي يقول صلي فإنك لم تصلي ليه بكل ما عدد كم بكل النبي عليه الصلاة والسلام محيا للصلاة وهذه شرعي وافق صنايع صلاة معها صلاة الشرعي قال معها مركن الشيخ يقول يقين بالشدة هي مجتمع السيدة ويهابوا قرني إن كستو مثلا الرجل حكومي ننعك آخريين لكن أسوق وحويان ديب هوسه ayuu misalada u yaqiinay marka wuxuu beeshii ka soo saaray islaantaasi inaysan furreyn reerkiina saas buu ku badbaadiyey marka waxay ku kala culimadu dadka ahlu cilmiga ah badanaa daliilka aqoontiisa iyo naska aqoontiisa waa inay la socotaa waqtiga naskani munaasib meeshan ku yahay iyo waxyaalaha ka hor imaanaya inay meesha ka baxaan waa inuu qofku uu garan karaya xaajadan wuxuu ahaa allahu naxariistee xaajaadayaare dadka khibradda noocaas oo kale ah uu lahay ayuu ahaa oo muddo dheer la noolaay dacwada iyo tarbiyada iyo xerta iyo habka ummaha dadka wax loo baro marka waxaa keenay masaa'isha qaarkood inuu si xeel dheer uga jawaabo taasaa keenaysa oo khibraddaa siinaysa marka masaladanadu xirid waxay leedahay hadalka aan sheegay oo ahayd masalada waxa la yiraahdaa booli bixintu waxay ahayd mas'alo ku xiran bulshada iyo mujtamaca aqoontooda dhulkaasi xaajigu uu yimid maaragtay mudug iyo xaradheere ilaa waxa weeye hobyo ayay ahayd meeshii maaragtay badanaa oo sheekhu markaa uu marayay oo masaa'ishan qaar lagu weydiinayay marka hobyo weliba hobyo ahayd marka wuxuu sheekhu ogaay bulshada ku nool meeshaasi nooca ay u dhaqmaan dad waxay ahaayeen intaan u teginin sheekha iyo xertiisa iyo aan xoogay dacwada la gaarsiin dad muslimiin ahaayeen laakiin masaa'il fara badan maysan garanaynin dadka miiga waxay yaqiineen waxa la yiraahdo maartay xoolaha in la booliyo reer inta weeraraan in geela waliba geela la kala booli jiray geelana waa la kala qaadayay waxaa la tegaya meelo fogfog dhulweyn buu geelu maraa geelu waxa weyn duurku daaqaa geelu waa xayawaan xoog leh waa geel waa xoolo la jecel yahay saa darteeda ayaa muddo waxaa lagu noolasay carabtuba jaahiliyadii ahaan jireen waxa la yidhaha aliqaara weerar in la qaado oo reer maaragtay ama reer kala dagaalamaan markaa geela laga dhaco geelaasaa marka la dhacay baa booli loo yaqaana boolidu waa geela la dhacay eraga la yidhaha booli bixin macnaheed waa maxay markaasi waa geel la dhacay oo la xalaaleeyey weya soo sax maaha eraga asalku soo sax maaha waa booli bixin waxa weeyaan waa geel la dhacay boolida ku jirta oo maaragtay lasoo dhacay in la geelaasi xal loo helo sidii loo xalaalayn lahaa hoola u taala geeli la dhaca waxa laga yaabaa in la booli bixiyo ka dhigaa wixii xaraanta ahaa marka masaladu waxay ku dhisan tahay geela waxaa dhici karaya inuu awowgii shanaad soo dhacay waxaa dhici kara awowgii toddobaad inuu soo dhacay soo booliyey waxaa dhici karaa awowgii koowaad inuu soo booliyey ninkan joogaahay geela waqtigii lasoo dhacay inuu joogana waa dhici karaysaa haddii marka wiili dhaxlay geel asalkiisii lasoo dhacay ama aabbihiisa uu soo dhacay ama aabbuhu uu dhaxlay oo awow ka dhaxlay ama awowga awow kale ka dhaxlay xoolihiina intaas la tabcayey oo sidaa loo haystay maaragtay jiiliyaal ay iska dhaxleen dadayaal qarnayaal iska dhaxlay sheekh waxaa su-aashu tahay xoolahaasi sideebaa xal looga helayaa waan marin doonaa su-aashaas waxaan ku xijin doonaa jawaabteeda fadhiganaga labaad insha allahu tacaala doctor aad iyo aad u mahadsantaa run ahaantii meel fiican oo qurxoon inoo joogtaa halkaasaan maanta ku ekeenaynaa arrinkeena muhiimadiis goonida lahaa waa
mucjiso culimada Soomaaliyeed saaran geel la soo dhacay oo intaasoo qarni lagu soo intaasoo sano lagu soo dhaqmay in la yiraahdo isla culimadii haddana xalaaleeyo geel hal la booli bixiyo marka waa sheeko xiisaheeda la dibaan iskaga soo noqonaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin daawadayaasha waxaan leenahay waxaan isku soo laaban doonaa halkaas inoogu egtaa maanta sheekh jazakallahu khayr jazaa aad iyo aad u mahadsantaa barakallahu fiik